anigoo sii tixraacaya dadka anigu waxba uma qabtada aad tiri nimcooy muddooyinkii ugu dambeysay social media waxay isdhex mariyay ama baraha bulshada ay ku kulanto inay warar soo baxayo lalahaa nimco reerkani ka soo jeeda iyo reerkani ka soo jeeda iyo gabadh ka hadli jirto waa walaashii oran jirtay hawshaasi horta iminka halkay maraysaa horta waa su'aal aad iyo aad u fiican dadweynuhu iga sugayaan horta runtii wax badan maan rabin maanta inaan ka hadlo laakiinse aad bay u fiicantay waan ka helay su'aashaad weydiisay marka dawaa wax media galayo dadunka dhan laga ogyahay Soomaaliya horta waxa weeyaan halkan waa aniga imi June iyo July ugu soo joogo waxaan u imi inaan adeega DNA kala qaadano DNA baan u imi anoo joogay adeega hadashay Hargeysa jooga oo jiri DNA-diiba ka dhumanaysa lama hayo 4 bilood uma soonto caynka lulu aan Hargeysa jooga iyadu mu waxay isleedahay waxay joogtaa London 7diiba hadashay أنا سديت دي بنهضل ما أنت كحكتي بدري بقى ورستي وأنا جدي أدي قال هذا جاي ونكوي ولا المعاني لندن ونكل شوقة دي أنا دي بنا نوئمي مالنتا شون يشلاي يأكس بنشوقي إرجان درتي بقول أحمد باكم دها وحكم دها سلطان كي أدي كم دها أديرو إبراهيم إن وان درتي وحنقول نحن نقطة دي أنا دي نوكل قاعدة أنا وأنا جا إمي شكلنا نسأل قصة أفشر adigu waxa sheekadii waan arkay inaan xagoodi ka soconin adeeg passport ma haysatay iyo weel garoobo la geeyay iyo adeer iska tag soo noqodka laga dhigto baba adigu si leeyma weelinayay waxaan arkay inay waqtigii horta June iyo July ba iga socdeen adeegina sheekhiska joogtoonay marnaba Hargeysa igu iman bas marka markii dama waxa lagu yiri adeeg kuma soo socoto danaha iska qabso dad baxayso adeeg ku jirta laakiinse hadii aad baxdo way soo fadhiisan xorun doonta gabadhii hadina baan qaadayaa meeday sawta leeyilana beedan u baxsato Hargeysana way dhuumatay deedna anigu waliga station ma arag iska daa maxkamada gabadhan uu imaadeerna Faadma dheer leeyahay kuna wal maxkamadda madiif igeysido way ikaxaysay maxkamadii bay igeysay wala sukay taagay waxaan ku laarintaas rabaa aniga walaashii adeegayna la kala saaro noloo qaado dhacanka dheeneeda arshi soo qoray luuri arshigii ma soo qortay maanta kala soo celiyay waxa leega gudoomay lawyer baan qabsaday waxa leeyahay hadana maanta caynkaas soo noqo waan soo noqday waxa leeyahay adeega samakaas loo dirayaa maanta halkii lagu hagaajinaya waxaan siiyay sultaankii Ibrahim adeero nambarkiisa waa la wacay in yar baa loo dhiibay waa loo geeyay date kaas ay imanaysa halka kaalay waa la isku keenay maxkamadii aniga adeega face to face ilaahay ba iga sareeyay yaa anigu been ku hadli maayo hadda shabcana waa lagu jira soo way soo socotaa adduunkana waa iska qasan yahay ilaaliye ilaahay bay iga sareeyeen gurigeyga nabad tegin intuu xaakinkii kacay intuu kacay sultaankii Ibrahim ayuu adeeg way dhigalaad waxba ma maqasho markaas ku ma loo yar baad u tan wasiir maya hasiir fadhiiso ma hadli kartid adigu ala kulli xaal xagooda kama soconin sheekadu waxay ku soo gabagabeeyeen in dib loogu dhigo dib hadana loo dhigay ana waan baxay mudda la ii qabtayna waan ku imi hadda saddex bil baan joogaa bishaasoo dhan waxaan taaganahay maxkamad arti samakii hore way bugtaa gaariga ma soo qabanaysaa la yiri haddana kii kale bil noogu dara week baa loogu daray hadda kii u dambeeyay waa tan warqadeedii adeega tii u dambeysay ay hadda maxkamadda u soo dirtay waa taa intaa dambe oo dhan waa taas maxkamadda ay soo hagaajisay waxay tiri waan xanuunsanayaa mana kici karo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa walaalayaal corona jira la isuma bixi karo ana qof weyn baan ahay inaan noolaan iyo kale ilaahay baa og 7 bilood dib hala iigu dhigo anigu ma degani Hargeysa waxaan deganay Ingiriiska waxaan ka codsanayaa walaasha adeega si sharaf leh adeega wax badan baad media ka qaylisay walaalo kaalay birta soo bax maxkamadii go'aankan bay gaaraysaa markii xaqiina war laga waayay maxkamadii soo dhaqaaq weyda adeegay go'aan bay maxkamadii gaaraysaa aniga lawyer labaad baan qabsaday waxaan ku iri ilo adeegaha la keeno ma ba dhici karto inaan halka ka dhaqaaqo adeego halka la keeno mooyaan waxa la yiraahdaa wuxuu ku malihin maxkamaddu maaha qof maadar galay oo dambi galay oo la soo xilxiriyo soo ka tiinaysan la keenayo waa madani way diidi kartaa way yeeli kartaa haddii diido haddaan lahayn maxkamadda anaga xukunka ridayna marka hadda xukunkii bay maxkamaddu taala waxaan ka codsanayaa adeega
iyo reerka aniga isoo korsaday sharaftayga mudan intaa soo leekaysiiyey inaad iga aqbashaan inaad berri baad iga ii keentaan saa dambe maxkamadana la geeyo intaan xukunku dhicin soonka kahor buu dhacayaa intaan xukunkaasi idinku dhicin in aynu dhacaankii kala qaadano ayaan idinka codsanayaa xumaantuna ma fiicnaa anu marna waxba kuma degdegayo adeega waxaan u ballan qaadayaa haddii waxaan u cadaynayaa adeega horta qof anigu nolosheeda maan arkin caana oo magac leh oo 20 sano hooyo aan dhalin iyo reer aan dhalin iska haysto iska korsanaya markaas adeegidina tiraado qayladaan waa wareey marka waa 2000kii waxay hadashay 19kii intaasoo dhan bay hadleeday adeegi oo tiri nimco anaga walaalo may wala may anigu sheekada waan ka soo sheekay mar 12kii waan hadlay hadda waan ka hadlay maxay haydeen waxaan ka hadlay VOda anigu anoo 3 jir laga qaad waxa la geeyay Djibouti salaam batun caraaleeda la siiyay oo daa waxay korsatay inankeedii intuu qabay guriga ku wada noolaayeen iyo islaantuba halkan joogtay markaa sheekh madad bediganta salaantii aniga korsatay batun caraaleena ilaa naxariista way dhimatay Djibouti baan ku soo koray shajir anoo ahba reerkayga ka lumay walaalkayga helay shajir anigoo iyo odigi duubri loo oran jiray ilaa naxariistadeynimadiisba waaweyn hadii mar walba yimaadaan ilaa iyo 8 jirkaygii 9kii markaan ku socday sidaas bay reerkaasi daba socdeen anigu markaan riwaayada qaaday Shamaali Djibouti baan aniga walaalahayga la soo hadleen markaan saa Ingiriiska u galay way la soo hadleen dibbigiisa xiriirinaya reerkani waxaan ku markaan sharciga saa u qaato Ingiriiska way dul taaganahay dhiyana baan ka qaadanayna okay gabadha ayadii baata intaas calaamad baan kugu ognahay hadaad leedahay noo soo sheeg intii calaamadood baan u sheegay waan isunimi reerkaygu waan isbaranay adeega waan u tagay sheekh waan tagay waxaan ku leeyahay garanayno 3 jira 4 jira 5 jira 6 baan u gaaray no way ilaa haddana waan taaganahay lama helayo oo masaajidka galay ku dhaaranaya ana weyn oo 9 sano jira waxba iiga dhinay baan iga sheekhlay keenay marka adeegay waad ogtahay aniga adeegana way sugnahay walaalay macaani waxaan doonayaa inay waxa la beefkatay baa runimo gaadho laakiin hadda runtii bay taagantahay waa runtii waa real adduunkan waxay haystaa ma jiro horaa loo maray ilmaha dhashaan laga qaadi karin ku dhiigaaga baan lagu oran karin ma dhiigaaga dhacaan baa la kala qaadaya waa very easy wandhay bay nagu dhamaan dhacankeen hadii la doono la diraya ma aqaan wiig baa lagu soo jawaabi ma aqaan anigu hadii la inaga qaado waa ban dhaqaaqayba ifa jawaabta sugi maayo walaalay macaani waxaad ku codsanayaa aniga adeegeen la sukay keeno waa mar labaadkii aan DNA u soo noqdo qoraal la soo qoro iyo kuman la isku soocayo waxaas waa very simple waa dad aqli gaaba waxa looma baahna waxa loo baahayay reality adeega DNA kala qaadano DNA hadii adeegun baa ka nool adeega ka nool iyo caruurteedii marka adeegay waxaan ka codsanayaa inaad media inta istaagtay waa wareey aad tiri 20 sano kadib maanta reerkayga helan ku yeeran ku dhina reerkiina u yeed oo kaali reerkan la xaale oo kaali DNA ba jira kala qaadane wadiga halka iga mareeyay ma waaye inta soo sano kulba intaan argeysay maado hooyaday aqal baaqalka ugu qurux badan intaan u karay ugu raaxaynayay hadda muddo yar bay sii motantaa 2 sano oo sidii boqortooyadu aasad inta ugeed markaas aad qaylin lahayd ma bay daniga hadeenba runtii bay taagantay kaalay DNA aan kala qaadanay oo idinka codsanaya waliba maxay hadii la boqor Axmed ka codsanaya gabooyo dhan ka codsanaya saadigu wada kacdeen iigu kaca adeega ii keena iiga qaada dhacaanka waan idin salaamaya Ramadaan Kariim baan leeyahay Ilaahay balayday naga xijaabaan leeyahay in aadna waan idin salaamaya gaar ahaan waliba reerkay soo kursaday ee anaasta reerkay biraha madaxdiisa arintiin sharaf bay iga mudantiin markasta waan idin ogi kortaankii laakiin waan ka codsanaya Soomaaliinta adeega raacday iyo gabooyo dhan ilaa boqor Axmed baan la hadlayaa waa in sida aniga igu kacdeen adeega ugu kacdeen ana igu kacdaan maanta noo kala saartaan intaan maxkamadan dhicin aadna wadi salaamiya tankii farmaaj muriyar baan galay marka hore fara qosol yar baan ku jiray imkana mur baan galay laakiin saad baan salaamaya waa Soomaaliya wada jecel Soomaaliya oo dhan waan ka sharafoonayna hooyadeed yaa beed ka faanta mana geeyo adeegan waxaan u cadeynayaa maanta u cadaato inaan noqdo inaan u cadeeyo inaan hayna jaam xirsi deeriye wallahi intaan taray ka badan baan taraya oo saan hore ugu soo hagaajiyay ka badan baan ugu hagaajinaya
oo aanan ka maqnaaneen oon mar walba sheekh la joogaya oon mar walba sida aan u ahaayay si ka daran aan u ahaanaya aad baan ku salaamaya magacayga haddaan horta mashaakilka magacaniga haysta waxa weeyaan horta aabbihi way fiican bay soo korsaday aad taa ay dhaleen way ka jeclaayeen wax si fiican ii soo koriyey waxay baray hadday quraan tahay hadday iskuul tahay wax kasta marka haddii aanay fanaanad ahayn oo aan ahayn mooyiga ku ilaa ma rabo beer hore 4 xafadood ban burca la helay waatan burca la odhan lahaa laakiinse imika waa fankan imika aan ku caan baxay ayaan horta muddo dheer iga hadhi doonin laakiinse magacayga rasmiga waa burca jaam xirsi deeriye aadna waan salaamaya hooyadeyna waa naag reer boore ma ah reer awdala maasha allah khayr baan isku ognay markaa barasho wanaagsan mar labaad waad salaamaya